هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل كان واحد كوارتان قيبها كلا دوان بلشدة كسو جدة ان اما داد كان لو يقانو ماخر لاند اما ماخر ستيت وبشور سنجلي قيبها اذا كلا دوان سياسيين odamay dhaqameedyo ganacsato dhalinyaro ayaad u jeedaan waxa ay digniin baaq u dirayaan beesha caalamka United Nationka, European Union and African Union, IGAD. waxay baaq u dirayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo tuulooyinka degmooyinka gobolada Soomaaliya iyo maamul goboleed ku sheegyada heshiis xaaraan ah la soo galay ama la soo doonaya inay la galaan ajnabi aan dhulka iska lahayn Makhirland ama Makhir State ama Warsangeliland iyo wixii hoos yimaadaba waa shirkadaha ama shirkadda DB ama Dubai Ports loo yaqaano oo maamulada Hargeysa sida ay ayaguba ay hadda halkan ka dhawaajin doonaan iyo Garawland ay soo saxiixeen heshiisyo xaaraan ah oo ay doonayaan inay heshiis kula galaan kuna boobaan dhul aysan iyagu iska lahayn. odayaashan iyo salaadiintan iyo saraakiishan ciidamadu halkan ayaad ku dhageysan doontaan ujeedadoodu waxa ay tahay iyo waxa ay doonayaan iyo waxa ay ka digayaan haddii halkaasi la isku baaba'o oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed isku baabaado ama shirkado la soo khalday sida shirkaddan DB la dhaho ka dhisan hadii ay ku yani hadii ay ku maayo Dubai Ports loo yaqaano haddii ay soo gasho dhulkan Makhirland ama Makhir State ama Warsangeliland hub iyo halaagir ku raaci doono marka bal aynu ku soo dhaweyno insha Allah taala generalka horta aan idin baro ama gaashaan la dhexe ayuu xilligii dawladda haddana طبعا generalnimada waa la qaatay laakiin waa nin caana ninkan oo Soomaaliya iyo Puntland laga yaqaano ninkii haystay ciidamada BS-ta hadii ay ku dmaysan jeclahay dalka Mareykanka laga yaqaano xiriir xooggan la leh marka ku soo dhawow gaashaan sare magaca muxuu ah waa ku salaamaya aniga Cornel Cabdiwaxid Baaliyada gaashaan la dhexe ciidanka daraawiishta ee Puntland baan hadda ahaa oo taliyaha qaybta military intelligence-ga Puntland hadalkan beeshu hadda ay isugu timidna waxaa inoo furaya adeer Axmed Cali Jaacan nabadoonka markuu inoo furo baan anigu marka ku xigsanaya marka adeer ha inoo furo horta hadalka nabadoon Axmed gacmo dheere waad garanaysaan waa nabadoonkii beesha Warsangeli waad garanaysaan beelaha hawiye daarood isaa kulligood waa yaqaanaan digli marifle waa oday caana nabadoon caana oo hadii ay ku idmaayo kulligiin aad wad garanaysaan gacmo dheere hadii ay ku idmaayo magacaaga muxuu adeer Cali Axmed Cali Jaacan أحمد علي الجامع وقعد دير له يغني. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هل كان مانتا وحان يسوون نميد أنقو ماخر لاند ورسنجلي وأنو يسوون نميد نور الأمريكا وخاصة لبا قبول كسوعنا إياه هايو إيو مانسوتا لبا دا قبول waxaanu halkan aanu ka jeedinaynaa oo baaq aanu uga diraynaa waanu halkan aanu maanta u sheegaynaa caalamka in dalka iyagii lagu hayo faragelin hujuun ah oo aan cidna lagala tashan cidna aanay ogeyn waxyaabihii hore oo ka jirayna dhaqdhaqaajinaya markaa halkaa waxaanu ka digaynaa waanu u sheegaynaa xawla alcaalam waxaanu u sheegaynaa dowladda Soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa in allaale iyo intii baaqayagu uu gaadho inaannu ka digayno halkaa wixii ka yimaada heshiis ka la sheegaayo oo lala galay shirkadda Imaaraats DB lala galay baanu leenahay waa heshiis dalka iyaga lagula galay xaaraan ah aanaan ogeyn aanaan shaqo ku lahayn aanaan ogolaan doonin dibna aanaan u ogolaan doonin baaqaasaanu ka diraynaa aanu leenahay wixii geystay iyagaa leh waxooda foolxumo wixii ka yimaadana iyagaa leh inta haddeer ay tahay oo aanay weli aanay soo gelin baanu waxaanu u digaynaa Imaaraatis baanu u digaynaa oo leenahay
idinka laftigiinnu haddii laydin khalday oo layidhi waa loo dhan yahay waa ogtihiin dalka waa la kala leeyahay waa sida imaaraadka waa loo kala leeyahay oo dalka loo kala degan yahay marka waxaa laga yaabaa in laydin soo khalday oo la yidhaahdo waa og yihiin iyaguna waxaa la leeyahay 150 kilomitir 150 kilomitir baa la saxeexday waa ilaa Boosaaso ilaa berberayba gaadhaysaa waaba dhan dhaafsan tahay ba annaga marka annagu markaa waxaanu ka hadlaynaa generaalka ama korneylka ayaa noo fasiraya haddii ay ku idmaayo heshiiska korneyle haddii ay ku idmaayo waad haysaan labadiinuba heshiiskii waa kana baaraka allahu fiikum soo saar heshiiska soo saar heshiiska horta waa kaas heshiiska waa kana waa Soomaali ku qoran heshiiska dhismaha iyo ballaarinta dekedda Boosaaso halkaan ay ku taallaa oo dhex maray dowladda Puntland ee Soomaaliya iyo shirkadda Global Port Services FZE Dubai waa April 2017kii April goormay ahayd 8 taariikhdu ay galuusan tahay heshiisku marka aad buu u fara badan yahay 2017 weeye waa April 6 April okay April waa kana April Dubai waa April waa 6deedii marka aad buu heshiisku fara badan yahay ma koobi karno heshiiskii waa kana waa buug dhan waa dalkii oo dhan baa lagu dhacay waa khiyaano qaran bay ku leeyihiin marka waa naloo faahfaahinayaa ninka hadda aan hor fadhiyo waa nin haddii ay ku idmaayo qaybta sirdoonka Puntland haystay waa nin sargaal sare ah oo sirtii qaranka haya oo wax badan ka war haya nin cayaaraya ma haddii ay ku idmaayo oo baalkii ah dibad iyo dalna waa laga aqoonsan yahay haddii ay ku idmaayo marka magacaaga noogu celi anu korneyl cabdiwaaxid baa layaa gaashaan la dhacay ciidanka daraawiishta Puntland baan ahay madaxa military intelligence-ga Puntland baan ahay waa sirdoonka military laakiinse sharcigu iga xadidimayo wixii qaladaada oo ay dawladdu gasho in aan ka hadlo wixii dulmiya oo dadka lagu hayo in aan ka hadlo in aan deegaanka wax dhib biri u keenayo annagana fariisanaya in aan ka hadlo taariikhda halkan heshiiska 6 April lagu galay 2017 waxaa ku cad 150 mayl in la saxiixay DP World ay la saxiixatay maamulada ee heshiiska la gashay inay la saxiixatay 150 mayl berbera dhinac walba Boosaaso dhinac walba inaan waxba mashaariic laga fulin karin maxaa halkaa ku qeexan in la xadiday mashaariicdii dhulkiina loo xiray DP World waa qodobka labaad waxaa la jabiyey qodob dastuuriya qodobka 54aad awoodda dawladda federaalka iyo dawladaha dhexe ay kala leeyihiin baalka lagu jabiyey dabcan taa waxaa ka xisaabtami doona dawladda federaalka heshiiskani markuu soo gaaro iyagaa ka xisaabtami doona dalku dawlad buu leeyahay laas qoray sida taariikhda aad la socotaan mashruuc baa ka socday mashruucaas oo ah dekadda laas qoray dhismaheeda since 2008 buu socday ilaa haddeer wuu socdaa qurba joog badan oo reer maaqira baa dhaqaalahoodii la baxay dhisanaya inta dawacnimo ku dhisaya in marka cid loo xadida oo la yidhaahdo wax mashruuca iyo wax barnaamija sida heshiiska ku cad lagama fulin karo waa isku dir dadka walaalaha ah ee wax isku darsaday 98 ee reer Puntland isku dirkaa hadduu dhacana tiimijihan waxaanu ka dhaxalay waa la garanaya tiimijihan waxaanu ka dhaxalay maantay galgala Boosaaso iyo buuriye calmadow in ay ku jiraan nimankii afka duubanaya ee shabaab taasina ay sababtay ranchisos heshiis lala galay oo ah macdanta miijiyahan in ay soo saarto dadku deegaankuna uu ka kacay dagaalkana uu ka biloomay qabiil iyo maamulkii isu dhalan rogay in laga faa'iideysto argagixiso ka faa'iideysato maantay tan la wado marka waa in dadka walaalaha ee wax isku darsaday ee wada degan ay ka feejignaadaan waxyaabaha loo maleegayo birri ka maalinna la isku dilayo waxaanu baaq u direynaa hay-adaha caalamka waxaanu baaq u direynaa dawladda imaaraadka waxaanu baaq u direynaa DP World ummadda reer Puntland iyo Boosaaso haddii wax loo qabanayo annagu waa dad walaalahaya ah waa dad aanu ka mid nahay kama xumin in wax loo qabto waxa aanu diidannahay ballaarinta kadeed ma ahan waxa aanu diidannahay sharci darada heshiis lagu gelayo oo lagu xadidayo dhulka iyo mashaariicda ka socota haddeer waxaa socdo dhismihii sidaan idiin sheegay kun mashruuc oo kala socotay qurba joog reer maaqir ay rabaan inay dhulkoodii ka fuliyaan
lagama fulin karo in cid loo xanibo waxaanu yeelayna maahan waxaanu ka dagaalami doono waxaanu leenahay yaa la isku lidilin dadka walaalaha ay wada dhashay dowladda federaalka cid walba qof baa ka jooga xildhibaanada guurtida cid walba waa la matala waxaanu leenahay waxa aaboosaska u fadhidaan waa dadka idin soo dirsaday waa inaad ka hadashaan waa inaad cid walba oo khiyaano qaran ama samaynaysa wax ummadda iska horkeenaya aad ka hor timaadaan waxaan kaloo hambalyeenayaa oo soo dhowaynayaa dadka aan walaalaha nahay oo maanta shirar ku qabsaday boosaaso sidaasoo kalena u caddeeyey sidaasoo kalena uga hadlay waxaan ka wadaa beesha haddeer cusmaan maxamuud bahgareen oo u dambaysay oo boosaaso ku jirtay shalay oo sheegtay ilaa xaafuun mashaariic inay u haystaan cidnana aysan xadidi karin oo soo koobi karin dhulka waxa laga qabanayo oo qofna uusan xuduud u samayn karin odhan karin intaan d b wall baa leh intaan imaaraad baa leh intaan eritreyaa leh dhulka ilaahay baa leh ummad baa ku beeran qabiil walba deegaankiisa isagaa leh miyaad leedahay marka qabiil walba iyo dad walba deegaankiisa isagaa leh muxuu lahaan waaye sax in wixii la isku dilay shalay lagu cimri qaato laga fogaaday ahayd in maalin walba wixii dabada la hayo waanu ka digaynaa odayaasha jaaliyadda reer maaqir ee ohio columbus haddeer iyo jaaliyadda minnesota oo xuseen uu haddeer marti nooga yahay xuseen jaamac baan hadalka ku wareejinayaa ra-iisul wasaarihii isla haddaan imid dibadda ma fadhiisan waan shaqeeyaa jaaliyadda reer maaqir abaabulkeedii dal iyo dibad ururka s s b haddeer reer maaqir deegaanka ay degan yihiin ka kooban baan guddoomiyihiisa difaaca ahay marka shalayto waxaad ahayd puntland military intelligence ninkii ugu sarreeyay baad ahayd ama argixisano dirarka ama qaybaha kala duwan ama nabadgelyada ama wixii qabiil wada ama wixii qurun wada ama wixii inqilaab wada adigaa puntland oo dhan adigaa xukumay amnigeeda ama ha ahaato caalamka xiriirkiisa ama dawladaha dariska ama meel kastaba marka hadda xilkaas waad ka wareegtay xilal kale oo ka weyn baad u wareegtay dabcan saa qiyaasiyo marka ma wax hadda kugu dhashayba mise waxaan weligaa waad aaminsanayd walaal anigu puntland haddaan ka soo shaqeeyey oo aan sarkaal ka ahaa xaq baa laygu lahaa dadka reer puntland waa dad isu yimid oo wada dhashay horta qodob dheh dadka wax isku darsaday hadday qaldamaanna sida ay u qaldameen raadkeedii iyo tallaabadeedii bay leedahay dadkuse marka ay meel degan yihiin deegaan degan yihiin ummad yihiin masiirkooda haddii ay wax qaldamaan inay intay isu yimaadaan wax iska weydiiyaan waad og tahay deegaanka anigu aan ka soo jeedo dad baan matelay dhibaataa waxay ka socotaa 12 sano haddeer qarax baa ka socda dil baa ka socda dhibaataa ka socota xaqiiqdii dowladda puntland iyo maamulka puntland waa la tacaalayaan way la rafanayaan haddeer anagu abaabul qurbaha ah waxaanu gallay in aanu iska xoreyno meel uga soo wada jeesano argagixisada dhulka iyaga ku dhuumaalaysanaysa si aysan yaa soo dira si dhageyso ma hargeysa laga soo diraa ma Ethiopia laga soo diraa ma Imaaraadka laga soo diraa si aysan taas u dhicin u kaadi hagelina idinku aamus hadii la si aysan taas u dhicin hargeysa waa joogtaa dhageyso si aysan taas u dhicin Cabdiraxmaan si aysan taas u dhicin toobid baan ku taagnaa horta toobiga laga saarin si aysan taas u dhicin anuu koonfurtan ku dhashay kuna soo koray doolada digaaga waxa la yahay markay dhali weydo bacbaa futada loogu xiraa cuq baa la yidhaahdaa saasay isaga daba wareegtaa waa wax bacdii digaaga dabada loogu xiri jiray baa annaga buuraha inta dal la soo geliyey baa dabadana loogu xiray marka iishiyeeda mar gaaraan ka hadlayaa haddeer meel baanu halkaa iyo somaliland ma tihiin dhegeyso halkaa iyo hay Cabdiraxmaan iishiyaha aanu isugu nimid waa inaanu eedeennaa dhegeyso Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan dhegeyso waxa horta qaban hadee su'aalo la isweydiiyay caadi weey dadkan waa dad jira oo xor ah maamulada isku haysta siyaasadii hadal adigu afkaaga dhib Cabdiraxmaan dhegeyso horta naga yaacin si jadwali hadalnine anagu halkan waa kugu marti qaadnay anagoo shirkeena jiraa'id haysana beel ahaan baad noo timid ma way taageersanahay waxyaalo isku khaldan baa jira oday saxaafadda iyo dadka iyo wixii qaldan ka hadlaan ku naqaanaa qiimayna tixgeli waa ku tixgelinayna gudoomiye generaale siyaasi si kal iyo laaba ku tixgelinaya waxaan qarsoonayn oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamku og yahay dadkan Makhirland state oo jiritaan kale in 59 qabiil ama dawlad ku sheeg ay isku haystaan wax qarsoon ba موقفكنا عداية تاكا تصاري فيري صوماليا 1991 بعبد الرحمن بربر صح
gees dhalay Soomaaliya 1991 bay burburtay sax hadday burburtay qabiil baynu u kala burburay sax qabiil baynu u kala burburay gees dhalay haddaynu u kala burburay annagu dhegayso dad baanu wax la dhisannay aanu la dhalanay aanu la wadaagno wixii aanu dhisannay haddii la qalday talo iyo reerku inuu isu yimaado wax iska weydiiyo waa iishii kale wayna socotaa sax wayna socotaa haddeer waxaanu ka hadlayna waa DB Wall inaysan deegaanka iyaga u rahmanayn kuna fududaan marka Puntland idinkoo ah oo ka tirsan bad haddana waxaad ka digaysaan khaladka ay Puntland waxaanu ka digaynaa qaladkii shalay la isku dilay maanta inaan la isku dilin dadka walaalaha aan isku warcad sheekadu waa caddaat haddana waa kana xuseen oo ay caburinaya waa kana soo dhawo xuseen haddii la gudbaayo thank you so much si geesnimo la wada washay mawqifkii waana arrin cad haddii la gudbaayo soo dhawo mikrafoonku wada haysta على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غير ذلك ما شاء وكسر ورجاء إن إله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن والله إن أنا وحان وقائم من الصوت أرنتن إن أنا أضياش كله وذابو إن بيبي وول ملها لاسقرينا ملها بربرنا ملها بوساسنا ملها marka anigu digniin horta u diri maayo hal meel kaliya good laakiin digniinta waxaan u dirayaa Somali youth dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wadankooda iyo masiirkooda inaan wiilal yaryar iibsan gees dhalay qabiilna sheegi maayo laakiin waxaan sheegayaa nimanka tuugta ah ee shaqaysanaya ee jeebkooda iyo akoonkooda kaliya u shaqaysta xaaf u waa qaraabanayna markii su'aal la weydiiyay akoonkooda no qabiil male nimankana waa nimankan waa niman qaraabanaya kuma le dalkana iyagu shaqadooda maaha qabiil shaqadooda maaha iyaga inta kaliya ee wada shaqaysta isku qabiila laakiin waxaan leeyahay Somali youth meel walba aad joogto ama berbera joog ama hargeysa joog ama boosaaso joog ama xamar joog waddankiina waa inaad kala dagaalantaan nin walba oo siyaasi ah oo tuug ah hooyadaha ha dhasho habartaha ha dhasho waxaan u sheegayaa oo aan la hadlayaa shacabka degan maakhir iyo shacabka degan boosaaso ana waxaan leeyahay nimanka walaalaha ka berbera kaadi waxaan leeyahay heshiis xaaraana wey heshiiskan haddeerto aan cabdi weli garay iyo asxaabtiisu ma shaqayn doonaan waxaana leeyahay ama BB ha ahaato ama carab ha ahaato ama mid kale oo siyaasi ha ahaato ninkii yimaada maakhir ama berbere ilaa la boosaaso xeebteeda ana waxaan kula talinayaa halkaa xabada lagaga dhufto there's no baryo sirraankiina waa kana adilaga kuma toosti watara صح haddii shacabka wax loo qabanayo annagu ma diidanin laakiin waxaan diidanahay waxa xaaraanta ah oo hoosta laga wada saxiixanayo dawladda federaalka dawladda prime ministerkii baa jooga ma u tagaysan hadda wasaarahan isaga u socdaa berito hay aban Soomaha waanu soo bandhigaynaa arrinta dawladda federaalkana waxaan kula talinayaa garbihiina kala fidiya shacabkiina hoosta lagala baxaya dawladahan yaryar ee qabiilada ku dhisan ee calamada wata ee shacabkii midba meel la aadaya يا أخي بالله عليكم في الصومالية صور دافع إذنك إيه وسير ردينو إيه سنة ردينو في الصومالية صور دافع ودنك أوردن أما كتالية هديك لا كتاكا رجبا نودي بلينا ودن كتالية there's no more nice man وباهنين وحن أباهنا إن نمن موادنين أو مدحة وباهنين ويل intay suud noo soo xidhaan waddanka aan war ka hayn waxaan u baahannahay dad muwaadiniin ah dad waddankooda waxqabadkiisa raba dad ilaahay yaqaana niman sara joog ku kaadsha inay maalmo warqad noo saxeexaan oo dadka iyaga isku qabiil isugu dilaan dadkan nimankan madaxda ah ee aan ilaahay aqoonin qabiilkiina maaha Soomaaliya waa dii sheegayaa isku tulmatiid hooyadaha hadday dhashay waa xaraami cune waa nin salaada tukan waa nin sara joogka ku kaadsha waxaan dii sheegayaa afku baa iga xumaadee raalli baan ka bixinayaa laakiin waxaan dii sheegayaa xildhibaanada maxaad baa quduraysaa go'aan bay ka soo saari karaan dalka Soomaaliyeed hawada dhulka iyo badaha kulli in la difaaco hadda xildhibaanadu iyagii baan soo dhaafay $3,000 ay qaataan kaliya ku filan they don't care shacab kale oo Soomaaliya meel ku dhimanay dantooda maaha
طبعا سوما لكن وحن ليه هاي رقبة كتيرة كلي خير قار وناكسن بقى كتيرة طبعا سوما والصوت دافع حمر ودلك كور هي دلك ما هو النين بورسوتها وقبيل كم عابن يارو يدنكوه سدوسي وضدك يدنكك حيسن وشعبك يدنكك حيسن طبعا سوما أنا وحن ليه هاي nimanka ma dalkana ee reer Boosaasoodna waxa la reer bariga war nimankan hawdka ka imanaya isku keen dilin nimankan hawdka ka imanaya isku keen dilin nabartay leeyihiin dhalinyarada maakhir halkan waxay ku soo qoreen maakhir waa sanaag iyo bari khasab nagu bartay intii aan aqoonay waxa soo qoray hadii ay ku idmaayo manahil cali baa soo qoray nabartay leeyihiin hadii ay ku idmaan waa kana haddana ganacsatadii Soomaaliyeed ama ganacsatadii maakhir state magaalada عانك كذلك أمريكا أي مقعد نوشة عبد الرحمن مرسل بسم الله الرحمن الرحيم مقعد ووجا وناس اللي ويغن عبد الرحمن مرسل ورسمه أيالي حجر أيالي رهضة وحنكمل ذا حي بلشدة غير ماخر كولومبوس أوهايو سيد قضياش هذا الشيئين باقي يجو معها باق لتكوه دولة بنلان معها باق لتكوه بيل معها باق لتكوه حرمر باقي يجو لتكوه هي مشروعا دي بي ويل iyo dawladda iminka joogtay ee gobolada Bariland ay heshiiska ku galeen heshiiskan tuugada oo aan lagala tashan dadkii deegaanka oo aan lagala tashan dadkii ay saameynta ku lahayd ee deegaanka maakhir marka annaga baaqayagu wuxuu ku socdaa DB Well wuxuu ku socdaa dawladda Puntland wuxuu ku socdaa beesha caalamka wuxuu ku socdaa dawladda federaalka waxaan leenahay DB Well dadku waa qabaa'il waa beelo qabiilna qabiil cunaqabateyn kuma soo rogi karo qabiilna qabiil isma hortaagi karo horumarinta dhulkooda heshiiskan ay la galeen dawladda Puntland oo ah in 150 kilomitir ama 150 mayl dhinacna aan wax mashruuca oo horumarina laga samayn karin waa null and void waxba kama jiraan yaan la idin khaldin baaqna waxaan u diraynaa dawladda Puntland waxaanu leenahay dadka fidmaha dhexdhigana horumar lama diidana horumar waa la soo dhaweynaya dadka fidmo ha dhexdhigana ayaanu leenahay dib ugu noqdo haddaad horumar doonaysaan haddaad rabtaan in infrastructure dhulka laga dhiso dadka deegaanka dega ee ay saameynta ku yeelanayso dib ugu noqda la tashada ka qayb geliya marka heshiiskan waa xaraan baad leedahay heshiiskan xaraan weeye baaqna waxaan u diraynaa dawladda federaalku shaqadeeda inay qabsato weeye dawladda federaalku iyadaa u dhaxaysa beelaha iyo maamul goboleedyada dawladda federaalku inay sharciyada dadku wax ku qaybsanayaan ee mashaariicda ee horumarineed lagu samaynayo dawladda federaalku inay saxdo weeye hadda gabri waa ku jira khadka kuna daawanaya xaqiiqi yani been ku sheegi maayo Ethiopia ayaa waxa la yiri durba 20% ayada Cabdiraxmaan oo mashruucani Ethiopia Hussein Kumale DB baa la shaqaysanaysa we don't really care about that barbara markay loo saxay annagu waxa aan baaq u dirayna oo mulkina annaga la badlay annaga dhulka yaga of course waxaanu annagu baaq u dirayna annaga la badlay dhulkina sida aanu sheegnay dawladda Puntland beesha caalamka DB Well iyo the federal government dalka annaga leh dhulka annaga leh dadku beel bay u degan yihiin beelina beel cunaqabateyn kuma soo rogi karto wixii ka dhashay mas'uulka of course cidda keentay yaa ka mas'uul marka baryood ninna kala tashamsan deegaankii ya no more nice man ya no more nice man qoriga nin walba waa haystaa of course what are you talking about gudoomiye soo dhawow haddii la gudbaayo ciyaartii waa dhamaad igu soo orodna waa dhamaad dhul lagu habsadana waa dhamaad dekada la iska boobana waa dhamaad dekada la asqoray warshadii la asqoray baa ku taalay la asqoray kalluunkii macaanaa ee qof walba uu garanayo qofkii dawladda soo gaaray kalluunkii macaanaa oo haddii la gudbaayo laga cuni jiray ya oo dib loo dhisaya ما jirtaa maalin dhaweyto saxaafadda inay qoraysay su'aalaha marka hore ka dambeeyay بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. magacay waa maxamed ismaaciil waxaan ahay gudoomiyaha ururka sool sanaag bari jaaliyadaas baan ku hadlaya afkooda meel kastay joogaan waxaan halkan sidii odayaashii iga horreeyey iyo korneylka iyo adeer axmed cali jaamac iyo cabdiraxmaan mursal iyo intii hadasho dhan aanu baaq u diranaa muxuu ahay maamulka puntland oo runtii heshiis mar hore bishii afraad soo galay laakiin aan la ogeyn heshiiska dhaliilihiisii iyo waxyaabaha ku duugan ay haddeer soo baxeen. waxyaabaha annaga qodobada naga khuseeyo na soo jiitay waxaa ka mid ah annagoo aan diidan horumar iyo in waxaa weeye dhulka la horumariyo iyo investment annagoo diidan waxaa weeye annaga waxaa naga khuseeya magaalada la yidhaha dhulkanu history buu leeyahay horta annagu haddaanu reer maakhirnahay 1800 baa ingiriisku wuxuu nala saxeexday heshiis waxaanu nahay reerka keliya ee somaliland british somaliland dhulkii la odhan jiray navy lahaa oo ilaa cadan dadka ka soo qaban jiray oo magaranaysa slave traderkii ka qayb galay waxaan history baanu sheegaynaa ma aha inaanu dadka magaranaysa iibi jirnay kadib waxaa weeye dhulka historygiisa marka laga hadlayo annagu reerkaa keliya aanu nahayn oo magaranaysaa historyga lahaa carabtii waagaas aanu deriska ahayn oo leerhkaygu isu muuqdo waa dadkaanu sadaqada sii jirnay bay ahayn maanta kuwa imaaraadkana dhulka iga iibsadaan taa markaa inta kaga soo gudbo waxa weeye dadka iyagii caynka ahaa ee dhulkooda ka awow maanta in heshiis magaranaysaa tuugaysiya in dhulkayga lagula wareego oo la yidhaahdo min boosaaso muxuu ahay 150 mile oo square ah de annagayna saamaynaysaa waxay saamaynaysaa markii boosaaso la joogo waxa weeye la taagan yahay airportka waa deegaanka maakhir halkaas ka bilowdaa magaaladuna noo kala qaybsantay annagu reer boosasood baanu nahay dhinac walba annagaa ka xigna boosaaso ciidana kama lahaa magaalooyinkaanu gobolka bari ka degnayna ka mid tahay iyadiyo tuulooyin badan oo 20 marka waxa weeye heshiisku wuxuu noo saameynayaa marka la yidhi muxuu ahayey ilaa xaggee buu gaarayaa marka 150 mile square de waa ilaa ceelaayo cadcaddo laas qoray muxuu ahay geelweyto intaasoo dekadood aan anagu leenahay buu saameynayaa oo la rabaa in loo xidho db wall waxa weeye db wall waxaa kaloo heshiiska ku qornaa oo ka mid ah waxyaabaha runtii muxuu qaran jabiska maamulka puntland inuu yahay maamul madax bannaan annagu markii 98kii la sameynayay puntland beeluhu sameynayeen waxaan u samaysanay in ay midnimada soomaaliya ka shaqeeyaan waxaa lagu midoobay sida dowladnimadu waa contract weeye in soomaalinimaa lagu midoobay dowladda federaal la raadiyo tiina waa la helay maanta in waxa weeye dowladdii la dhinac maro taasuna waa qodob laakiin dowladda federaalka u taalla inay ka hadasho iyo xildhibaanadu annaga taayadu wuxuu ku wajahan yahay dhulkayaga inaan cidna lagu soo khaldin inaanu baylah ahayn inaan annagu leenahay annagoo puntland ka mid a ba haddana dhulka waa la kala leeyahay annagu reer maakhir baanu nahay nin walba dhulkiisa isagaa leh waxa weeye malaa dadku waxay moodeen wuxuu yidhi ninkii carabka ahaa idaa ra'ayta niyuubi laysi baarisatan fi lleyli falaa tadunnu anna laysa yabtasimu haddaa aragtid habeen adoo mugdi maraya miciyo libaax xamood inuu kuu qosliyo reer maakhir waa libaaxaas weeye dadku waxay moodaan ma garanaysaa inay iska hurdaan laakiin waa libaaxa weeye marka la soo galo aagooda runtii markaas baa waxa weeye daqiiq kiciyaan ha marka yaana lagu khaldamin waxa weeye marka miciyaha warsageliya lagu khaldami baad leedahay ya aamusnaanta iyo iska deganaansha iyo walaalnimada iyo soo dhawaadada iyo wanaagaas ha ku khaldamin baad leedahay haduu ka soominida haduu ka soominida falnimo badan baa xeerinaa marka waxa weeye baaqu waa marka libaaxii kalmad ka hadlaysa aad iyo aad marka waxa weeye dhulka annaga ale waxa weeye heshiiskaasna waxa weeye laaqiyatun wa baadil waa naalan foyd waxba kama jiraan muxuu ahaayey in la yidhaahdo mashaariic waayo mashaariic horaa noo socotay dekeda laasqoray mashaariic badan baa ka socotay waxaa ka mid ahay deked jaaliyaddu soo dhammaystay oo magaran saaxiibada iyo reer kuwait ay maalgelinayaan waxaa ka mid ah jaamacadda ugu weyn africa baa laga dhisayaa east africa waddaa noo socota waxa weeye annaga priority maanta maba ahaynba in muxuu ahay dadka la kala qaybiyo ay puntland waxyaabaha noocaas nagu soo fatahaadee waxay ahayd in cadowga koowaad aan wada leenahay buuraha ku jira waanu la tacaalaynay oo haddaan community lahay isu abaabulay oo ma garanaysaa cabdiwaaxid uu yahay guddoomiyaha difaaca iyo siyaasadda urur ballaadhan oo meel walba ka jira oo aanu ma garanaysaa ilaa dhaawac ayagii qaadnay ilaa waxyaaba badan ka qabannay argagixisadii aanu ciidhi gelinay intaas bay ahayd puntland awalba dagaalka way nagula jireen ay sii xoojiyaan laakiin in waddanka la iibiyo thank you axmed sida soo qoray generaal cabdiwaaxid waa korneyl caanka ah puntland marka waa kana korneylkii waa cabdiwaaxid korneyl caanka ah ee puntland sidii baan uga ahayaan dadka la isku dirin yaan dhulka la iibin yaan dadka la iska horkeenin dadka hal cadow bay leeyihiin oo buuraha ku jira labada buurood calmiskeed iyo calmadow bay saaran yihiin yaan mashruuc laga dhigan sidii looga saari lahaa meesha keliya laga fakero marka dekedaha soomaaliya iyo dhulka soomaaliya hawada soomaaliya lama gadi karo lama gadi karo
وانا باطل وبادي وكورنيل كوكا هي haddaan daro yar heshiiskan kale oo berberana waxaan maqlay isna intaa in leeg inuu yahay 150 isku meera kaasna uu soo gaari karaa uu saameyn karaa because muxuu dhulku uu isku wada dhow yahay 150 mayl Soomaaliya marka la eego waa dhul gobollo dhan bay saameynaysaa isagana waxa weeye hadduu qaabka u dhigan yahay waxba kama jiraan waana ka soo horjeednaa berbera markii British Somaliland la ahaa reerka kaliya 15 nabadoon 16 nabadoon iyo suldaanku heshiis saxiixeen caalamiya oo heshiisyada ka duwan anaga ahaayeen berbera iyo markii ingiriisku yimid dad wuxuu ugu yimi caadi oo garanaysaa baa u saxiixay iska ganacsato iyo dad caadi ah wax official lama ay gelin berberana waxa la oran jiray riisanka kaliya anaga heshiis caadi ah baan la galay iyo ma garanaysaa aanu waxa weeye oo ah mutual interest baan ingiriiska la galay laakiin meelaha kale in la wada danaysto berbera laakiin waxa la galay muxuu ahay the butcher of Adan in xoolaha loogu sii qala kaliya maanta in anaga naloo dawladeeyo xitaa tii hore aanu anagu ogeyn iyo taa anagu baabiinay oo wali markii dambe anagu aan xadka diidnay oo aanu baabiinay oo ma garanaysaa ilaa suldaankaygii 9 sano waxa weeye Seychelles loogu soo hayay markuu ingiriis ka hor yimi iyo waxyaabahu wado iyo talyaaniga isfahamkooda in maanta anaga naloo dawladeeyo waxa weeye after 80 years waxaanu qaadan karnaa ma afar jasiiradood oo la gaday ayaa jirta ay ka mid tahay Socotra aad baan uga hadlay Socotra loo yaqaan waa 9 miles Cabdikuuri bay u taqaanaa Cabdiguray baa la dhahaa waa jasiirada adduunka hadda UNICEF waa meesha adduunka ugu qaalisan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo al-Warsagaliya al-Arabiya hatta al-Marixaani sida hadii la gudbay al-Majerteeni baa jooga marka ma waxaan ka wadaa waa la gaday fiiri rag baa doon siistay hadii la gudbay ay saaran yihiin badar la yaqaan rag daarooda gatay Socotra iyo Cabdiguray sonkor iyo milix iyo waxay siisteen sawiradoodii baan soo bandhigayaa ayagoo anaga ingiriis loo keeno dabagaab qabadina rag boqorreel leeyahay waxaan ku leeyahay marka sidii jasiiradii wata boosasalkeeda ku taala Socotra ku taala waa jasiirada adduunka ugu qaalisan hadda Mareykanka wuxuu ka sameeyay saldhigyo waaweyn kala barkeed konton qariyo ayaa waxa ka dhisay Ali Abdullah Saalax oo dalka Yemen u dhashay buu ku wareejiyay yani imaaraadka carabtu waa booban jasiiradaas dhowr isbitaal bay ka dhiseen dekeday ka dhiseen waxay ka dhiseen aeroboorro dalkii ayaga qaatay hadii la gudmahayo marka waa deeqi waayeen afartii jasiiradood oo imaaraadku u qaatay meel walba dekad xun iyo isbitaal iyo inta ka dhisaan iyo wada yar bay waxay leeyihiin arka horumarka aan sameynay markaas odayga reer miyiga oo gaajaysna ee milix iyo badalka sokorta loo geeyay wuxuu leeyahay kurigood u furso xaaf muxuu ku hadlayay hebel muxuu ku hadlayay sheef sakiin muxuu hadlayay mid walba wuxuu leeyahay kuwaana isbitaal noo dhisay ama waxa noo dhisay marka waxa weeye waa dad gaajaysan oo hadii la gudbo jeebka loo buuxshay waxaad ku celcelisay laba jeer Somali British ma waxaad in Somaliland marka idinku mise dad madax banaan baa tiino Somali Federal waa la burburay qabiil walbana tuuru dhistay Jubaland daarood baa dhistay koonfur galbeed raxweyn baa dhistay hadii la gudmaayo hawiye wuxuu dhistay hadii la gudmaayo gobolka Banaadir hadii la gudmaayo Jawhar iyo Beledweyne ma jartan wuxuu dhistay ma jarteenya isaaq waa dhistay yaatiin idinku أنا كوشي وحماي listen أنا كوشي وحماي أنا وحنا دت صومالي طبعا سما قبيل بدرادي مثل صوما أنه قبيل كانوا هنا ورسنجلي لكن صومالي بارون هاي عرقاب يقبل كسناك نوامشي صومالي كتمي طبعا سما دولة فدرالك يا قصتي دقيش كوشي دولة فدرالك ورنا وحنا هاي صومالي wax kalmati wax kalama mani waa ka kac wala waxaan ahayn in Soomaaliya ma ku sheegay dhulka la yiraahdaa qabiil lama yiraahdo ay Puntland Soomaaliya dhulkii uduga la yiraahdaa labadaba waanu degnaa ama Soomaaliya laakiin annagu waxaan nahay dad wanaagsan oo labada qolob xeerinaya labada walaalaha iyo dariska nala idin ma baqbaqlayn kara marka ma anagu hadalkii waa wanaagsananaya hadda dalka annaga leh marka annaga leh marda mana masiirkiisana idinka leh of course ninkan baa hayay ninkan baa si geesnimo la waday soo gabagabeynaya ka qaldan marka soo gabagabeynaya taas si geesnimo uga hadal adoo si sharxay ma dhulka historygiisa waa la yaqaanaa hadii rabtiin Somaliland laga hadlana Somaliland hore waxay ahayd waa la yaqaanaa waa inay ka gudubnay waa inay Soomaaliya noqonay waxa weeye waa tii Soomaaliya la noqday tan iminka jirtana waa maamul jira weeye laakiin qodobka aanu ka hadlano waxa weeye marka deegaankiinu waa deegaankii ونو وحنو نهاي ماخر أو محمد سوما ماخر ستيت بنا ماخر ستيت باتي الورسنجلي يوحي صومالي لدكت أرض اللبنان هذا تراهينا ولوك وبنتلان ويا عربي أساس قطعي صح مركز دجاج كنا نين شيئا كرم مجرى هذا وحن كسر جبجبين صومالي مركزنا نهاي وحنو كونترات أما هشيس كو أهين إن مقرنا السا دولة فدرال الراديو
in magaranaysaa intaa ka horeysa lasii ahaado gobollada magaranaysaa maamul goboleedyadu ay nagu simaan dowladda federaalka in la xoojiyo lala shaqeeyo aan shuruucda laga gudbin laakiin haddii laga gudbo oo maamul walba uu magaranaysaa wax ka baxsan sharciga oo magaranaysaa heshiisyada jabinaya oo madax bannaanida Soomaaliya wax yeelaya hadday tahay daacadeer annama waanu keeni karnaa Maraykan dhulkayga waa karaysan karnaa laakiin taa ma rabno marka waxa weeye carab aanu cid walba ka badin oo leerkaygu isu muuqdo annaga cid nooma soo mari karto noomana soo xaysan karto marka afaaraduna ka badisa soo ma fahmin aad iyo aad marka waxa weeye waxaan kula intaana taa u gudbin dhulkiinni waad ka hayaameysaan maxaa tahay ku lafayeen xagee u hayaamana dhulkii waa deganahay ya waxa weeye dhulka kan deegaameyn baa ka socota waa kuu sheegay dhegeyso dhulkan waxa weeye dhul iskugu jira bad iyo bannaan iyo buurta overgreenka ah the Pennsylvania of Somalia oo magaranaysa oo biyo ka dhacayaan oo adduunka meel lamid ayna jirin saa ma ahaatin adi rag baa ilaaliya soo ma fahmin maamuladan muxuu ahaayay mar hore qaadan lahaayeen muxuu ahaayay gumeysi mar hore qaadan lahaa carabi mar hore qaadan lahayd laakiin dhulkan reer ma akhir waligo ilaashanay soo ma fahmin marka baqaxaysan waa libaaxi meesha fadhiyay aan kuu sheegay sax soo ma fahmin baadiye iyo magaalaba kama qaxaysan iyo tuulaba see uga qaxaa dhulkayga waa ku sii badanaa sug generaalka ku celinaya taas maxaad ka leedahay cabdiraxmaan dadkan qax laguma oqoon mana qaxi jirin sax way joogayaan dhulkooda wayna joogi jireen barnaamijkana horaan kuugu sheego waxaan kugu idhi haddeer ma bilaaban 2008 miijiyahan wixii ka dhacay taariikhda dib ha loo aqriyo ma doonayno marka annagu maanta waxaanu ku wajahannahay DB Wall iyo waxa ay gashay next waan kula kulmi doonaa sida haddeerba aad u timid shirkayagii ballaaraa iyo xafladii aanu aad baad u mahadsantahay marka waxaad leedahay ma qaxayno deegaanka waxa haba ka yaabin baniyo aad iyo aad baad u mahadsantahay aan ku soo dhawaano walaal magacaaga saddex magacaaga waxaan cabdi jooge aad baa u mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan shirkan hadee sida odayaasha hore sheegeen waa inta ay ka hadleen arrintuna waxay ku aadan tahay shirkadaas iyo dowladda Puntland heshiiska ay galeen inaanu ka soo horjeedno wax macquulan aanu ahayn waayo waddankayaga iyo hadda meelaha aan rabnaa wax ka qabano iyo dekedaayaga iyo deegaankayaga bay ku tahay liddi annagoo aan soo dhaweynayna waxqabadka gobollada wax laga qabanayo gobolka bari iyo gobolka sanaag iyo gobolka highland iyo gobolka sool intaba degna dadka ugu badanna ah kuna faraxsan gobolka bari in wax laga qabto deegaankayagana uu yahay dadka ugu badan aanu nahay laakiin waxaanu diidanahay waxyaabahan aan ku saabsan sharci darrada marka heshiiskaasaan kasoo horjeednaa baaquna waa sidaas buu ku saabsanaa marka waa hal bacad lagu lisay waxba kama jiraan arrintaa waxba kama jiraan dadka deegaankuna si guud bay uga diyaar garoobayaan arrintaas iyagoo soo dhaweynaya horumarka iyo waxqabadka laakiin wax kasta oo deegaankayga liddi ku ah iyo meelaha waddada aan ku soconno waa waxba kama jiraan mana ogolaan doono marka dowladda iyo maaragtay baad kala tashanaysaan wax kasta oo saddex ra-iisul wasaaraha oo ku sugan Virginia Brito shirkadda ama bari dambe waftigaana waa socdaan waraaqo iyo qoraallo iyo cabashooyin waad u gudbinaysaan soo ma dhulka annagaa iskale qoraal rasmi cid walba u gudbinaynaa ra-iisul wasaare iyo cid walba laakiin dhulka annagaa iskale annagaana tiradiisu naga godaa waxaanu kasoo horjeednana kama soconayo laakiin wuxuu aqoon-yahankan ka dhawaajiyey in ay jiraan heshiisyo idinka laftigiinu aad soo saxiixateen Kuwait iyo aad la soo saxiixateen waa arrimo badan oo soo socda oo rabno in wax laga qabto sida dekada Laascaanood oo kale oo waxaan uga soo horjeednaa hadda heshiiskan socda marka dawladdu kala tashteen ka laftigiisa idinku waa arrimaha socda hadda rabnaa kala hadalno dawladda dhexe inaad heshiiskaas galaysaan dawladdan cusub weli kalama tashan waa la tashan doonaa wax kasta oo federaalka in lagala tashado maadaama dawlad kale ay tahay waad gaarsiinaysaan Soomaa insha Allah waa gaarsiin laakiin heshiiskaas waad soo gaarteen idinku qabiilka halka degan wax kasta waddankayga wax qabad waa iyo horumar waa iyo cid kasta wuxuu qabanaysaa annaga inaga godaa taladiisa nin walba tuuladiisa isaga xukuma dawladdiisana waa la tashanaya waan la tashanaa dowladda federaalka waa good dawladdiina waa la tashanaysaa oo dowladda federaalka aanay ogeen way saxaysaa oo annaga lidin lagu ah waxaan baaq u diraynaa dowladda federaalka inay arrimaha wax ka qabato kan idinku aad wadaan waxaad kala tashanaysaan dowladda federaalka waa tusaysaa wax qoto qarsoon ma waxaan iyada soo marin ma socon karto wadaan aad baad sitirada ilaa gudbay rag dhalay ilaa gudbay wali waa socotaa haddii la gudbaayo beeshii maakhir state ama Baakhiland oo haddii la gudbaayo si raganimo la caawo hadlaysa qiiqna kicinaysa soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد عبد الله جامع وكمدة جاهلية ماخر يكسوغن ستيتكا كولومبوس اوهايو سيدي اي uga hadleen qoladii ugu horeysay oo maakhir waxaanu ka hadlaynaa heshiiskan xaq darrada ah oo dadka qowleysatada ee gaarka ah ay la soo saxiixdeen shirkadda DB World mana aha markii ugu horeysay oo Puntland ay gasho heshiis xaq darro ah oo kan oo kala waxa ka horeeyay kiimajiyahan oo aan sidan oo kale baaq ka horeysiinay
in ciddii keentay cawaaqibkeeda ay dhexli doonto haddaan la joojin waxaasoo dhan waa la laaday waa loo garab dhiibiyey waa la sameeyey markii dambe dagaal ba ka dhacay dagaalkii wuxuu sababay ilaa iyo iminkada argagixisada ku jirta buuraha haddii tanna baaqaasaanu ka horraysiinay aan sidaasoo kaleeto la joojin taa mid ka xun oo boosaaso laysugu yimaado ayay dhexli doontaa degaankana annagaa leh waxbaa meeshan laysku darsaday cid allaale iyo ciddii wax isku darsatay oo aan ogeyn anigu kama soo horjeedno in dhulka lagu sameeyo horumarin laakiin horumarinta waa iyo waxa saxiixi kara cid kasta oo ka soo jeeda deegaanka Puntland oo ay wax ka dhaxeeyaan laakiin qof intuu iska tago wax idina aanay la ogeyn uu dadka u garab dhiibiyo ma soo saxeexan karo oo intuu yimaado deegaan dad leeyahay kuma sameyn karo xadgudub annagu waanu dirnay baaqana waanu dirnay hadda ka horna waanu dirnay markii majiyahan oo loo garab dhiibi allah u naxariista markaa Cadda Muuse ayaa Puntland haystay haddana waa Cabdi Weli dalkan dad baa wax isku darsaday dadku waa dad walaal ah laakiin deegaanku kama dhaxeeyo dadka nin walba wuxuu leeyahay deegaankiisa deegaanka ay waxaan saameynayso hadda annaga leh haddii aan arrinkaa hadda laga hortegin oo sidii aan berigii hore la dabcay in loo garab dhiibiyo baaqayga aan soo jeedinay tii majiyahan laga dhaxlay mid ka xun baa ka dhici doonta boosaaso idinkaa dega laftigeeda dadka dega ugu waaweyn baa tihiin ugu badan baa tihiin xuduudiinuna kala barkeedu ka bilowdaa anigu qowl waa arkay maalan magaalooyinkii hore oo asmay oo leedihiin dagaalo ay ka dhaceen saliid ba kila ka guwa dhul isku dhadhow boosaas marka waxaad leedahay xataa kan dekada boosaas DDB oo shirkadan imaaraadka ka horjeeda Soomaaliya magaalada boosaaso waxa hoos yimaada 34 magaalo 18 maxamuud hartibaale 12 Axmed Hartibaale 3 bay ku leeyihiin Maxamed Harti 3 noo kala fasriya 3 kala saar 18 waa yaas kale Maxamuud Harti oo warsangeliya 3 kale dishi shaare 12 محمد هرتيري wuxuu ku leeyahay oo general ku xishay Ismaan Maxamuud inuu ka horjeestay heshiiska Boosaaso Ismaan Maxamuud degaankooda ka hadlaya ana degaankayga ka hadlaya ninka 200 mayl oo xagga iyo 150 mayl oo xaggaas dhinaca Ismaan Maxamuud ay ka saameynayso iyaga ka hadlaya waa hawliyada u taala anigu waxaan ka hadlayaa waxa aniga saameynta dhinacayga aniga saameyn ugu yeelanayso baaqan hadda ka hor baan u dirnay oo loo garab marka hataa Boosaaso degaankiina wad ka horjeedaan in la degaankay maya kama horjeedo wixii la dagaamanayay waxaan ka horjeedaa inay dad qowlaysata oo tuuga ah oo gaar ah inay heshiis aan cidina marka waa baadil heshiiskaas waa baadil marka waxaanu baaq u direynaa dawladda federaalka beesha caalamka iyo wixii ay qusayso iyo reer maakhir oo ah dadkii deegaanka lahaa in ay arrinkaas oo ku sugan dalka gudihiisa jooga inay sidaas oo kale iyaguna ay uga hadlaan oo haddaba ay ka hadleen oo dad ay ka hadlayaan annaguna aanu nahay jahliyadii نورد أمريكا أين كهد دوران جاليدها كله أكسوغن دبدة أو أكسو جدي دوران باقا كان بيطلعوا حد روان شيءنا حد روان شيءنا ماشى تن نيان اسكودين وحنا أوجين إنه تدل كيس صوص يحضر ولا صوص يحضر وحوي أو مرة بعد أو كل ليا مرصد حابة عواقب حماضة وحد دحل دونتا إدي وحن كدم بيسي هدي أن هد اللي جتوه أنا وايدين سلامة يا دمانتين وعلى السنة يا دمانتين جبوا أتكون جبين سنة هذه الكلمة هي أنت أنا تاسجلين ولا لا مقعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أنا كهلا لنا ورت الشيخ كل شيء وبيبي وول بيبي وول صحيح أنت وجد ولا لا صوغ علي وأنا قلين وأنا وحنوش شيء إن هذا كيجا مد غربة شوجا مدل شوجا إن جاه بدك على ما أنا إسكع لي أنا يمكن وإسكع دفاعان أنا كمشاريع عيد واسعتي جامعة دي واسعتي واسعتي دكدي oo uu soo saxeexay ra'iisul wasaare Saacid oo hayna warqadeedii oo dawladda federaalka ay soo saxeexday ismihii baan ku wadnaa waa socdaa wax naga qilaafsi waxa weeye 150 kilomitir wax mashaariic laga ma qaban karo annaga dhulka yaga cid looma xiri karo waxaanu diyaar u nahay inaan dhulka yaga cid loo xirin ee annagu aanu ka jawaabno oo cidaanu heshiis la galeynaa la galno cidaanu naga daayeen daay dawladda federaalka waxaanu u sheegaynaa qodobada khaldan oo uu saxeexay Cabdi Weli كفير صدا إيه قاعدين كدولة دي رئيس وزراء وفتي بان مديرنا سنين تقول بلنسية هاي وكبر عيسى نورد أمريكا كندا وهايو ما شاء الله يا ميابوليس وكل ما ينعنا رئيس وزراء إن شاء الله إن شاء الله حالات ده سبحان الله هاي دي بقى النقطة هو صحيحنا أفدار كوه الله هنا دي بقى النقطة وضد كشعب كوشة عربنا ودي سني عشان
عربي عجب الإمارات وحن الله لنا وأنا كهلنا وبي بيدنا مقليا والله ترجمة وبي بي وول وحن كهلنا أيه بي بول وحن لنا والله أنا هبين للسيحان بوساسو أنت قول عايز الله صور لا صور هي بوساسو هبين اللي بس سيحان اللي ما لديه هذا توجد لجيستان دون تيلا سنة مرتا بي بي وول بوساسو مركز الله صعبه بي بي وول وحنو شيء دون تيلا مريس وأنا إسكت مرة الملك مركز حولها هي قلبك أي كنسريان ان وحوله ورسي وغنيمه وغنيمه الهي وادغير دراي كيد ماي ان السلطان كنت سو غبغبين ان محد ادغنا waxaan leeyahay sheekh cabdiraxmaan adu yani military intelligence oo military anigoo hadeer ah gudoomiyaha difaaca iyo siyaasadda ururka SSP ee reer Maaqib gudoomiyahayna uu hadlayay Ismaaciil Maxamed Ismaaciil Qaari odayaasha iyo jaariyadina ay lagu garab fadhiyaan hadeer ilaa 5 xubnood oo goliid ururka ah ururkani wuxuu u sameeysan yahay cabdiraxmaan tafaasiil yar baan ka fiinayaa ururka SSP waliya sanaag sool iyo bari reerku sanaag intay ka degan yihiin waa taqaanaa boqolkiiba 9 weeye reer Maaqib soolna 6 magaalo baanu ku leenahay barina sida uu ku sheegay hadeer odagayga horeeyay deegaan culus baanu ku leenahay waliba degmada Boosaaso saasa magacuu noo kulmiyay SSB sanaag sool iyo bari annaga qaadanay ku dhawaaqnay jaaliyadahan kaga dhawaaqnay waan lagu shaqeeyaa hadeer 3 qodob buu u dhisan yahay sideedaba difaaca iyo xoreynta calmadow iyo dhammaan xuduudaha SSB secondly midaynta dadka reer Maaqib taali horumarinta 3 qodob buu u dhisan yahay 3 qodob dhismeedii baa noo socda barnaamijyo badan oo aan nala wadaagi doontid oo masiiriyana baa jira arrinkan waxaan u soo dadajinay maadaama shir aanu leenahay birito ra'iisul wasaariga Virginia imanaya odayaashina ay ka imanayaan New York Washington isniinta biriyaxada ma isniinta anana aan halka ka tagi doono kulanka yagaas bay xoojin u tahay baaqan iyo in adduunka aanu tusno DB Wall in dala'aan inay nagu soo gasho waa noognahay hadeer imaaraadku wuxuu degan yahay duleedka aeroportka Boosaaso waa deegaanadeena dib kuma qabno waa dad halka degan waxa u shaqeynaya ummadii weeye nacayb anaga ummadda hadii wax loo qabanayo iyo horumar laakiinse ummadda mashruuc isku dhufanaya iska horkeenaya dalka isu naafeenaya anigu cabdiraxmaan waxaan ahaa agaasimaha xiriirka dadweynaha 2005 to 2009 madaxweyne Allah yarxamo Cabdullaahi Yuusuf Axmed baydhabaan ka soo shaqeeyay jowhar baan ka soo shaqeeyay xamad baan ka soo shaqeeyay dadkii dawladda federaalka maanta la dhaxlay lagu fadhiyo dadkii curiyay baan nahay xamar madaxtooyadii maxamed siyaad bare ugu dambeysay inuu fariisto dadkii ilaahay uu la garab galay oo suurto geliyay in dib loo fariisto baan sharciyadoo dhan baa ku urursan Puntland warigeed waxay ku diriireysay federaal in la helo lagu shaqeeyo wadankana lagu horumariyo horumarintii anagu ninkii ka shaqeynaya waanu la shaqeynaynaa waanuna dhinac taaganahay ninkii ka leexda oo anaga macdan dhoofin dhagax dhoofin aan sharciyad ku fadhiyin iyo dal iibin waanu la diriireynaa waanuna ka soo horjeesanaynaa cadow baa dhulkii ku jira cadowgaa loo jahaysto hana laga hor yimaado mashaariicaysiga aan meelna jirin aan sharciga ku salaysnayn meelna ku fadhiyin dawladda federaalka xubnaha nagaga jira reer Maaqib xubnaha nagaga jira dadku hadday yiraahdeen maanta mar hadaad soo heshid warqadii ogolaanshaha inaad reerka ku matashid meesha birriba waa la isu soo noqonaya xisaabtii baa laga rabaa dukumeentiyadii waa la wadaagnay ra'iisul wasaarahana waa la wadaagi doonaa dawladda federaalkana waxaanu ka sugaynaa go'aanka ay ka qaadato baanu ka sugaynaa waxaan kaloo bogaadinayaa shacabka reer Puntland gobolka bari degmada Boosaaso kacdoonka ay ka muujiyeen waxa masiiriyan ama ummadda isku dhufanaya ama iyaga dib u keenaya marka hadalkeena maanta qadiyadaas ku salaysan yahay cabdiraxmaan qadiyadaha dambana shirarka iyaga noogu iman doonta waan kula wadaagi doonaa thank you maadaama aad tahay nin military digniinta aad u diraysid imaaraadka carabta iyo shirkaddan muxuu yahay dhibaatada ka imaan doonta haday indhaadayga digniinta aan u dirayo imaaraadku problem baa ku furan iyagu annaga waxtar Soomaaliya
inta sano ay burbursanayd waa garanaysaa waanu noolayn waanuna dhaqnayn waxtarkoodana kumaynaan taagnayn maanta haddaanu isniri wax qabsada maxaa loo joojinay maxaa kaa galay adigu naga saarniyo magac baad ku ciyaaraysaa فيديو انا اسكله اسمعي مريكن باتشو هيسو دوان وهي هيسو دوان مريكن باتشو you're in America عبد الرحمن هلكا نوغو غبغبي قبط الميلتري ما تقورتها قبا هذا قبست حقوق قبس فاتح هذا النمر فاتح هذا النمر فاتح سيدي خير فاتح إلهي وكانوا كبريانا أحدرينا إنه كان عكتي بس وقرت مياني كان أبشر ثاني الله وابشر يا ضد ضرب على الاستعمال يا ضد العكس وش غيرس العكس وقعتين اللي واجي من هلكا نوغو جوجي ايضا كورة كيليا غياري العقدي عبدولي قاس العقدي سوى شقين الساعة واحد عيوان جدان هذا الكاد كدر يسد هذا وحكوا هذا أنا كوا نوجا بجبي سيء أفكار سان كوا هذا وأفكي أضياء لما وأفكي ملتير وأفكي أضياء ما سنت هذا أنا كم مرسل هذا يكون ما نقلنا وما عاديات بدو ما سد عاديات بدو ما سديكو أسوأ حياة شالية دم آخر السيد أو سوق بجبيسي هذه كل البرنامج كاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنت يا شيخ عبد الرحمن كلنا كنا دنبان سوي من شركة تنبيه إن شاء الله شركة العقد عبد الولي قاس غير الساعة ورقي عبد الولي القصدك يا إذا عدى